isugu yimaadeen waxgarad aqoon-yahano iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada oo looga hadlayay ammaanka iyo nabadgelyada deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa maanta ka dhacay magaalada Xeraale ee waqooyiga gobolka Galgaduud. kulankani oo ay soo qaban qaabiyeen qaybaha bulshada iyo culimada ayaa looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa ammaanka deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud, waxaana dhamaantood ay isla qireen dadkii ka soo qayb galay kulankani inay muhiimada koowaad ay tahay in la sugo ammaanka deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud iyo dadka ku noolba. ugu horeyn halkaasi waxa hadal kooban ka jeediyay qaar kamid ah culimada deegaanka Xeraale, waxaana ay sheegeen in bishan Mawlid barakadeeda ay awgood u sameynayaan kulankani isla markaana uu yahay mid ay ugu baaqayaan shacabka ka degan hareeraha iyo deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud in ay ku wada noolaadaan nabad iyo barwaaqo. waxaan ku faraxsanahay nabadda ka jirta Xeraale, waxbarashada ka jirta, rasuulka jacaylkiisa ka jira, iyo siday Xeraale diyaar u yihiin Soomaaliya inteeda kale nabad inoo horseedaan. ummadda islaamka oo dhan oo Soomaaliya oo dhan oo ka kooban inaan diinta islaamka aan qabsano. dhowr diinood ma jirto, diintii Nabi Maxamed lagu soo dhiibay way diinteedu ayadaas inaan qabsano, tafaararuqa iyo kala tagga aan ka tagno oo aan ogolaano wadadaas inaan marno. kulankan ayaa yimid kadib markii deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud ay ka talinayeen maamulka culimada Ahlusunna wal Jamaaca ay inta badan maamuladoodii burbureen, kuwaas oo ay sheegeen in ammaanku faraha ka baxay. waxaase ay sheegeen in loo baahan yahay in laga shaqeeyo sidii ammaan iyo wada noolaansho lagu sameyn lahaa, iyadoo qaybaha bulshada ee kulankani maanta ka soo qayb galayna dhamaantood ay isla qireen in loo baahan yahay in nabadda la xoojiyo. waa markii ugu horeysay oo kulan noocan oo kala ah ay soo qaban qaabiyaan dadweynaha reer Xeraale uu ka dhaco deegaanka Xeraale, kaasi oo looga hadlayo ammaanka deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud. waxaana kulankani uu ku soo beegmayaa xilli dadweynaha iyo shacabka reer Xeraale ay qaban qaabadii ugu xoog badneed ay u sameeyeen dhalashada xuska nabiga kaleey salaatu wasalaam, taasi oo laga xusay 12kii bishan Mawlid magaalada Xeraale iyo deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud. waxaana ay sheegeen in bisha Mawlid oo bil barakaysan loo baahan yahay dadweynuhu ka faa'iideystaan isla markaana ay nabadda ilaaliyaan. Bashiir Yuusuf Nadaara, Somali Sat, deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud, magaalada